بسم الله الرحمن الرحيم أنيقا أو سلطان بشير محمد قيلة مركا اللي يلاهدو در محوية محويسية محو ككوبية حقود الدنيا أرن كنا أباهن إلا فلنقايو در ودر إرر سمالة مقا عيسى وين وأتشوي أتشي هداد مقشة مقا عن أتشي هداد مقشة ودروي وحويان حير أتشي بالله هذا شبويك وحلقوا معمولا حير أتشي dadku ajiin bay iska leeyihiin war aji waayo ajida waa dir weey waa in loo garto horta ajigu inuu heer yahay marka dir la yiraahdo ama ilma aji waa afarta ay kala yihiin waxa weeye waa madooba dir waa ciise waa taqaanaan madaluug dir waa samaroon iyo niman xaggan koonfurta degan iyo Itoobiya mahadir waa سورة إيا حنفترة وحال إلى محمد حنفترة وإساق محمد بيمال محمد قرآن محمد واللي ما كان قرأها للدقاء إيا باتشمال محمد وريه هيرانة إيا قلاف وحويان أفرت الإمام محمد سيدا ويان مركي نقطة مدحوين الدر ومحمد مدحوينه يا علي مدحوين محمد مدحوينه عرضة علي محمد مدحوينه لمن كان مقال دلي إساقة قيب تقوين قيبها وين قيب كمذا دلي وهبر مقال محمد مدحوينه يأكشه يا واحد السكول هذا محمد مدحوين لمن كان شيدله ورديله rag badan oo booranta ku jira la yiilale gurale tirada badani waxa weeyaan waa cali madaxweyne weeyaan cali madaxweyne dir weey marka dir horta sida uu kala baxsan yahay waa sida la fihiisina waa nin kala sheegay ciise waa lix weeye waa uu kala socotaa lix oday weeye sidaas horta ilma dir iyo ubadkoodii sida weeyaan haddii aan nidhaahno maxaa dir kala kaxeeyey oo beelaha la mid ah daarood iyo hawiye u midaysan yihiin dirna u midoob waayey dir wuxuu ahaa dad la geli waayey waqtigii gumaysigu uu geli waayey oo boqortooyina waqtiga boqortooyooyinkaasi ka hor gumaysiga ay jireen waxa ka mid ahaa boqortooyadii waamo madaxweyne dir ay lahaayeen ee wardayda weliba boqortooyadii waaqloobay ee mahadir ee biyamaalku ay lahaayeen boqortooyadii mahadir ee isaaqu ay lahaayeen ee herar boqortooyadii ciise iyo godobirsay ka dhaxaysay ee awdal boqortooyadii ciise iyo haddana gurgure ka dhaxaysay ee cifad ee diri dhabo boqortooyadii shawa ee cali madaxweyne boqortooyadii baali ee cali madaxweyne baali tan cifad iyo herar way islaayeen todobada boqortooyo aad kumeeysiga ko dad la gali waayay bay hayeen oo la qaban kari waayay qasab waxay noqotay markaa in la qaybiyo lagana qaybiyo xagga dhaqanka iyo abtirka si loo kala fogeeyo oo ay dadkan weligood isku xayidamin sida daraadeed gumaysigiina wuxuu noo raacay dadkii Soomaaliyeed markii xurriyad la helay halkii gumaysigii ayuun bay ka sii bilaabeen waxay noqotay in dir la dagaalamo in dir la kala ilaaliyo in dir la kala fogeeyo in la yiraahdo maxay sutiin in la yiraahdo ninka isaaq iyo ninka biyamaal maxay bay isu yihiinba halka in la yiraahdo waxaaba jirtay dawladii hore in la yiraahdo isaaqo dirmati in la yiraahdo godobirsoo dirmati in la ciiso dirmati in la yiraahdo akisho dirmati in la dirba in lagu soo reebo reer yar oo suraa iyo anagoo gaadsanoo naga fujin kari waay horta runta marka laga hadlayo waxa weeyaan dhulkii aynu u soo kacno
dhulka la yiraahdo British Somaliland Territory dawa ogtiin yaa majority away dadka ugu badan way Djibouti aad aragtay xeebta ka bilow ilaa iyo hadaafimo hal reer oo ciise la yiraahdo daadsan dadkan ormaha aad arkaysaan kiliilka afraad la yiraahdo boqolkiiba 80 waa madaxweyne dir boqolkiiba 80 madaxweyne dir dhulkan aad arkayso ee koonfurta goboladan ka soo bilow magaaladan la yiraahdo bari wadanka gobolkan bari boqolkiiba 40 baan gobolka mudug boqolkiiba nugaal boqolkiiba 40 baan gobolka mudug boqolkiiba 45 baan gobolka galguduud boqolkiiba 40 baan gobolka hiiraan boqolkiiba 45 baan gobolka shabeellada dhexe boqolkiiba 40 baan gobolka banaadir boqolkiiba 45 baan oo banaadir maxay tahay luqada carabiga bal macnee bina maxay tahay bina waa building waa dhismo dirna waa dir banaadir boqortooyadii mahadir meeshii ka talin jirtay fadhii jirtay way waa banaadir kelmadda banaadir lafteedaaba sidan ku samaysanba waa banaa u dir way dhismihii dirka way marka sidaa wax dhashay okay gobolada shabeellada hoose boqolkiiba 95 jubooyinkana boqolkiiba 80 labadaba jubba marka lagu yiraahdo markaan u soo leexano waxaan maanta la isku hayaa maxay tahay xaqiiqatan Soomaaliya wajigan cusub ee maanta u furmay waa Fuusiya Xaaji Aadan baa wadada lugta u saartay ra'iisul wasaare ku xigeenka isla markaana ah wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga marka xaqiiqada laga hadlayo waana gabar dira waxaan rabaa inaan madaxweynaha halkan ka salaamo inaan dhammaan guddiga fulinta oo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo ku xigeenkiisa ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga dhammaan wasiirada waxaan rabaa horta inaan halkan ka salaamo dawladda golaha baarlamaanka waxaan halkan ka sheegayaa marka hore annaga dawladda waa ku dulmanay sababta oo ah afarta janan ciidamada midna ma lihin jananka nabad sugidda ma lihin haddaan dirnahay jananka booliska ma lihin jananka militariga ma lihin jananka muxuu ahaa haddaan leenahay asluubta iyo ka booliska iyo ka military afarta ciidan ma lihin jananadooda agaasimayaasha madaxa bannaan ma lihin sufaradii dhuub waa kan laga qaaday maxaa dawladda santarka iyo ay beesha dir horta ugu tala gashay sideedaba haddaan u soo noqono shirkan aanu u soconno maanta waanu tegayno aniga habiilba aanu ka qayb qaadanayno nabadda waan soo dhaweynaa gaal iyo muslimba wixii nabadda hortaagana waan cambaaraynayna laakiin nimankan federaalka la ordaya hal baan kale al-shabaabka iyo argagixisadana hal baan kale nimankan federaalka la ordaya adduunyada federaalka 40 iyo dhowr dawladood ba federaal caalamka federaalka aan qaadanayna waa kee horta maka Mareykanka aan qaadanayna maka Kenya aan qaadanayna maka Ethiopia aan qaadanayna haddaan qaadano ka soo qaad federaalka Kenya hadda ay tahay annaga dir gobol dhan baan leenahay taana rivaliyad waa federaal misyelo oo ay beesha isaaq hadda kursigii koobaad haysato oo Eastern iyo Tana River labadaba annaka iskale haddaan dirna waana gobolada raacay qolana ay xeebta muslimka raacday markii in fidii la qaybiyay qolana ay raacday Kikuyu Island waxaan ku sheegayaa haddaan nidhaahno bal hadda federaalka Kenya gobolka North Eastern Province la yiraahdo ee Soomaalidu ay degan tahay ee markii Tana River iyo Eastern laga reebo ee laga bilaabo magaalada Garissa ilaa iyo Mandera gobolkaas 11 mudana ka soo gashay waana 1200 kilomitir marka ay noqoto Central from Nairobi to Gizii waa 300 kilomitir waxa ka soo gala 300 waxa ka soo gala 42 mudane waana 300 kilomitir maxaa yeelay dhaqaalihii baa yaala
warshadihii baa yaalla beerihii baa yaalla dadkii baa yaalla xaggana waa dhul weyn oo dhisirtiya waxba oolin saa daraadeed ba 12 mudane uga soo galaysa xaggana dhaqaalihii iyo dadkii baa yaalla adduunka wax lagu qaybsadaa wax lagu qaybsadaa one man one vote gobolka shabeellada hoose haddaan u soo dhaadhaco wuxuu ka dad badan yahay bari nugaal mudug iyo galguduud oo la isku daray buu ka dad badan yahay talaalkii ugu dambeeyay iyo qiyaastii wasaaradda arrimaha dibadda anigu ka shaqeynayay cidii talaalka ugu dambeysay far sabriya maalin la yiraahdo Oslo ila jooga ayuu ahaa ninkii talaalkii ugu dambeeyay carruurtii laga talaalay yaa lagu ogaaday labada juba marka la eego bal ka soo qaad degmo xagar hadda la yiraahdo maxamed siyaad markuu si baxayay uu magacaabay baa jirta iyo degmo badhaadhe la yiraahdo laba reer lagu kala sheego oo midna runtaanu sheegaynaa bartire lagu sheego midna maqaabal lagu sheego iyo degmada jamaame balisu miisaan ma isku dhaqaalaha ma isku dadba marka ma isku tiray qaadan karaan oo ma isku tayay qaadan karaan ma qaadan karaan 300 oo deegaan in ka badan oo dhul beereeda baa jamaame hoos imaanaysa oo tuulo waliba gebigeeda ay jamhuuriyadu tahay jilib sida oo kale 70 tuula hoos imaanaysa magaalada weyn oo sheekhaal nala degan tahay mooyee 70 gaba annaka iskale 300 jamaamana annaka iskale faro maqdisho halka madiina marka aad ka bilowdo ilaa iyo xuduudana cidinima dhex degana waxaanu isku haynaa soone marka la yiraahdo talyaanigu soonu sameeyay meeshan ka wada hadlaynaa waa banka jiira iyo afmadow ayaanu ka wada hadlaynaa raggan soo dooblabaya ee halka durbaanada soo tumanaya meesha laga wada hadlaya waxay noqonaysaa banka jiira iyo afmadow dhulkan Kismaayo ay ku taalo ka wada hadlamayno way shaqaba kuma ay laha Kismaayo meesha ku taalo waxa la yiraahdaa cal iyo kafar xeebta oo dhan kafar baa la yiraahdaa dhulka barigana cal baa la yiraahdaa qodaxda inta leego looda iyo arigu laba raflu ma ku noolaan karo nimankan soo orday dadkoodu laba raf lay dhaqdaan dhulkan cal la yiraahdo geela ku dhaqma nimankan nala degani waa gaal jecel waa nimankan la yiraahdo doqon diide waa nimankan la yiraahdo curmale waa nimanka ayuun baa nala degan dir barkaanuna gaadsan madalu hadaalan haye fuqu umar guriyaha magaalada markaad eegto yaa ilma cabdilaqoos ka guriya badan ilma cabdilaqoos iyo xasan dheerahan reecagoon ee muxuu ahaa umar muuse yaa ka guriya badan oo ka ilma cabdilaqoos yihiin waa niman dabal muuse yaa ka guriya badan yaa ka hanti badan habeen baan guri meel ku dhistay oo ku hoyday miyaa dhul iyo magaalo lagu qaata waxaan leenahay anagu nabad baan rabnaa nabadaan u soo jeedsanaynaa dirna wuu midaysan yahay bariga Afrika dirka degan maanta waa cusub baa u bariyay annaga hoggaanka u qabanay waa isu keenaynaa aniga habiil Ismaaciil Umar Geela baaq baan u diraynaa gogol iyo shir dir leeyahay ayaanu gogol dhigaynaa Djibouti niman baalaha jigjigaanu gogol dhiganaynaa waa amaanaynaa jigjiga gogol dhigta jigjiga nagama lihidin annaba waa dhigan karnaa dad dhiganaysaan dhigta wixii ka soo baxana waa qiimeynayna annana Djibouti baanu dhiganaynaa wixii ka soo baxa waa arkaysin cidna dhulkeeda kuma socono cidna aliyadin min waxaan u soo jeedsanayaa nimankan koonfur galbeed la baxay meesha ka qeylqeylay koonfur galbeed anigu ma doonayo nimankaas digilka waa digil horta sidiisaba digilka aniga la iga fogeynayo ee qabiilka kale loo bixinayo soo jiidama jiida waa cali madaxweyne dir quraanyowna waa biyamaal iyo isaaq walaalkood dadka ay leeyihiin anaga le kuwaasay ku darsanaya miyay waalanyi marka la yiraahdo midiflaha macallin weyna waayo miyaanu nin isaaq ahayn liisa miyaanu gaadsan iyo arab ahayn liisaan miyuunu 100% dir ahayn dadka la iga fogeynaya ee koonfur galbeed loola baxay ee halka Shariif Sakiin u sii wato yaaban garan lahay ha ahaato koonfur galbeed in la sameeyo kama xumin qaabkii anagu aanu u wadnay sida ma yahayn si ka wanaagsan bay ahayd laakiin waa ku degdegteen waxaana uun kamid yihiin waxan wax boobaya
laakiin dad aanu hadda annagu dhibaato u hayno ma tihidin marka laga reebo ninka gubernatooraha marka ka ahayd dadka gubay maalin wuxuu shir ku qabtay Oslo oo nimankii Mooryaanta ahaa ee dhulka iyo dadka baabi'in jiray uu u yeedhay oo uu halkaas ugu yeedhay kaasna waa la xisaabtay hadda xamar baan ku socdaayo waa is arkaynaa waxaan ku yiri qoladii halka joogtay dirka ahaa markuu isku kendilay inagii nimanka habar gidire walaalaha inay irirka isku kendilay haddana qurbaha isku kendilay fidnadiisu hayna dhaaf alfidnatu ashadu min alqatl dadkoo dhan ana suldaan u ah wuxuu hayna dhaafo baan ku yiri sidaasaan iskaga asturno nugu dhaaf isagu waliba quraanyo mee waa tuuf wey waa tuuf iyo quraan garuhu waa coalition waa laba qolo isku darsanto abti isu ah marka waxa weeye tuufka ya ay weey sidaan loo lamu dhaqmeen hadii nin quraanyo weey dadkii siiyay ee xukunkan u qaban qaabiyay Cabdikaafi nin leeyahay quraanyo yaa nugu baroortay aniga Cabdullaahi Ismaaciil oo yiri waligayo meesha jaga kabaanu qabanay maanta aan loo dhiib farsoolay iyo awdheeglay in yar ka degan markaasaan niri orod noqo anagoo Nairobi joogno hadda waa kaaba anagii baa meelan ka istaagnada gel ninka soo gelisaa ka bixiyay waxaan ku soo koobaynaa Somaliland walaalaheen ruwaaqada iyo horumarka ay gaadheen aad baan u soo dhaweynaynaa Soomaaliya oo dhan baa degan dir kala degan daarood baa degan kuwa dhul kale baa jirta Somaliland waa dawlad ka dhaxaysa dir iyo daarood iyo hawiye hatta fiqshini baa degan oo muxuu ahaa cid kasta degan annaga biyo maal baa degan oo madiigaan soo dabruba biyo maalma magaalada bartankeeda Hargeysa laga doortaa cid naga leh ma jirto marka waa soo dhaweynaynaa Djibouti walaalaheen weeye aad baan u soo dhaweynaynaa dhinaca dhaqanka dadka waa ka midaynayna siyaasadahana waa lagu kala duwanaanayaa shanta dal ee Soomaalida gumaysigu u qaybiyay dirka degan waanu midaynaynaa wuuna midoobay haddana shirka annaku nabad baanu la tagaynaa madaxweynaha iyaga noo yeedhay iyo wasiirka iyaga arrimaha dibadda nabad baan la tagaynaa system kana waanu ilaalinaynaa dawladda Somaliland madaxweynaha guddiga fulinta golaha baarlamaanka madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida dhammaan golaha guurtiga xubnaha muxuu ahaa siyaasiyiinta aqoon-yahamiinta bulshada dadweynaha dhammaan halkan aanu ka salaamayna waxaanu u rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo waxaana Soomaali leenahay ku dayda Somaliland ku dayda oo sida Somaliland horumar sameeya oo sida Somaliland nabad dadka u horseeda oo sida Somaliland dhaqaale tabca ayaan leenahay Somaliland waxaanu leenahay barwaaqooba waxaana tihiin SSDU idinkay idin ilaalinaysaa